anigoo sabirka xajiraya ayaan haddana indhaha ilmada ka celin ayaa la turjumay oo adduunka gaadhay oo ku fiday isaga ka yimi aanu cidna gaadhin khayrkiisuna uu dadka camay bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah waxaan halkan taasi uga dirayaa ummadda soomaaliyeed oo dhan maxamed ibraahim warsame hadraawi oo geeridiisa saaka laysoo sheegay naftaydana waan ka tacsiyadaynayaa saaxiibadiina waan ka tacsiyadaynayaa oo aad u fara badan ummadda soomaaliyeed oo dhan oo uu aad qiimi weyn ugu lahaana waan ka tacsiyadaynayaa waxaana lee ilaahay ha u naxariisto oo qabriga ha u nuuro neecaw qabow ha ugu yeelo masiirkiisana ilaahay jannada firdowsa ha ka yeelo ilaahay agtiisa waxaan u tirinayaa inuu khayr badan ku leeyahay muddadii uu noolaa waa nin wax wanaagsan ka tegey dhaxal wanaagsan reebay hadday tahay suugaan hadday murti tahay hadday wax sheegmo ummadda wax loo sheego dadka wax loo sheega tahay wuxuu ahaa nin saaxiibtinimo wanaagsan dadka bini aadamka oo dhan nin u nool wanaagooda ayuu ahaa bulshadiisa soomaaliyeed nin wanaaggeeda u nool buu ahaa ehelkiisiiyo qaraabadiiyo saxaabadiisana nin wanaagooda u nool buu ahaa nin aan weligii intaan anigu ka arkay shar isaga ka yimi aanu cidna gaadhin khayrkiisuna uu dadka camimay inalle intii uu gaadho xidhiidh la yeeshayba nin khayrkiisu camimay buu ahaa raxmatullaahi caleyh ilaahay ha u naxariisto aniga waxaanu isbarannay intaanaan kulmin baanu isbarannay anigaa bartay isagoo oo aanan isarag sugaantiisa ana i bartay 70kii marka laga soo bilaabo anigoo qaahiro ka imi oo arday ahaa ayaan ku bartay sugaantiisa kabacdina markii uu xadhiga xabsiga markuu ka soo baxay maalmuhu xabsiga ka soo baxay ee la soo daayey ayaanu kulannay oo ilaahayna kulan siiyey meeshaan ka shaqaynayay nimaanu saaxiib isagana inuu meel ka wada shaqaynaynay isagana allah u naxariistee oo uu yimi oo isaga qaraabo ahaayeen ayaa isu kaaya keenay saacadda aanu kulannay laga bilaabo ilaa intii aanu noolaynba ilaa maanta uu ka geeriyooday ilaahay ha u naxariistee saaxiibtinimo aad u dhow ayaa naga dhexaysay walaalaannu ahayn inaan wax badan ka kasbaday buu ahaa aqoon baan ka kasbaday fikir baan ka kasbaday akhlaaqdii anshax wanaagsanoo dadka lagula dhaqmo ayaan ka bartay nabar weyn bay igu tahay runtii saaka markii warka lay sheegay nabar weyn bay igu noqotay geeridiisu haddana ilaahay baan uga samray anigoo sabirka xajiraya ayaan haddana indhaha ilmada ka celin kari waaye xaqii ilaahay weeye isaga ilaahay qof walba abuuray isaga qadarkiisa ayaa lagu nool yahay isaga awooddiisa ayaa ifka lagu joogaa awooddiisaana ifka lagaga tegayaa maalintuu isagu dooray qof walba inuu ka tago ayuu ka kaxaynayaa qof walibana wixii uu ka tegay ee raada ayaa ifkana magac iyo ammaan u ah ama foolxumo u ah aakhirana thawaab iyo naxariista eebbe iyo abaalmarin wanaagsan u ah ama day hadduu waxun kasbaday oo adduunka kaga tegayna sidii ilaahay doono meeshii ilaahay doono ayuu geynayaa maxamed ibraahim warsame waxaan anigu u arkaa ilaahay baa qof walba tiisa oge in uu yahay nin ilaahay raxmadiisa iyo jannadiisa camalkiisa ku mutaystay baanu arkaa sidaasaanu arkaa ilaahayna waxaan uga baryayaa inuu naxariisto ilaahay inagana inuu sabriyo imaan naga siiyo maxamed ibraahim warsame wuxuu ahaa sugaanyahan waxay sugaantiisa xooggeeduna ahayd maansada gabayga iyo furuucdiisa faraha badan leh ayuu intaba ahaa dadka gabyaa way fara badan yihiin isagu gabaygiisa wuxuu ku kasbaday sugaantiisa wuxuu ku kasbaday jaceylka ummadda soomaaliyeed oo dhan iyo qadarintiiyo qiimaynta adduunka kaleba qaybo ka mida sugaantiisa ayaa la turjumay oo adduunka gaadhay oo ku fiday waxaana keenay waxa weeye macnaha ay sugaantiisu xambaarsan tahay ayaa keenay in adduunkuna uu daneeyo oo loo soo jeesto oo la turjumo jaha uu leeyahay baa la turjumay
ay ka mid tahay xitaa la yidhaahdo bulsho iyo markaa laba qura ka xuso iyo sirta nolosha. waxaa keenay mugga ay leeyihiin baa waxaan ku saabsanayn Soomaali oo keliya ee bini'aadamnimada oo dhan ku saabsana. qiyamta iyo qaayasoorada ku jira waa kuwa bini'aadamka wanaaga bini'aadamka oo dhan nolosha bini'aadamka ee fiican ee uu bini'aadamku ku kasban karo karaamadii alla siiyey. ilaahay bini'aadamku uu karaameeyey abuurta kale oo dhan uu ka karaameeyey wixii uu ku karaameeyey ayay labadaa tixoodba xambaarsan yihiin oo ay tilmaamayaan ay boorinayaan iyo tixihiisuba guud ahaantood waa sidaa runtii waa wada sidaa. waxa weeye taas baa keentay in Soomaali oo dhanna uu magac weyn ku yeesho jeceyl badan uu ka kasbado. Soomaali oo dhan meel kasta oo ay joogto waa nimay magaciisa hayso oo ay ixtiraamto oo ay qiimo weyn siiso waayo wuxuu ku kasbaday waxa uu uga tegay baa wax weyna. adduunkuna wuxuu ku daneeyey sugaantiisu mugga ay xambaarsan tahay ayaa mid bini'aadamnimada oo dhan khuseeya aaskiisii sidii hadda mar dhaweyta layga soo warramay iyadoo la sugayo qaraabadiisii inay burca ka yimaadaan walaalkii hurre inuu burca ka yimaado ay sugayeen ayaa haddana waxaa laysoo gaadhsiiyey inay doonayaan inay jumcaha birito gelinka dambe la aaso. dadkana intii ka soo gaari karta Soomaali oo dhan waa looga imanaya meel walba dalalka dhowdhow ee Jabuuti iyo Muqdisho iyo Jigjiga iyo dhulka dhow dad fara badan baa iyaguna ka imanayo ilaa birita ka soo gaari kara. ciddii aan ka soo gaari karin oo aan nasiib darradayda ama aan idhaahdo yaana waxba nasiib darro odhanine koleyba halkan aan jooga aanan ka gaadhaynine anigu kama gaari karo birito. waan jeclaan lahaa inaan aaska joogo laakiin tacdisidiisa maanta meel kasta halkan baan uga dirayaa qalbigaygana wuxuu la jiraa dadka birito haddii la yidhahdo xabaashiisa jooga qalbigaan kala jooga. biritaa markaa lay sheegay in la aasayo sida uu yahay ku talagalka hore haddii aanay wax isbedelin saasaa laysoo sheegay. ilaahay ha u naxariisto.